بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داودي الكوسو دوادا وركا تلفزيون كعبود واق وهذا هاي وكلا أتكد داوتان حرمتي سبحة دقمدا عبود واق وعنا الدياران لقوا محمد عبد جلق سنة قد بدأ أتكد داون دونتان اللي إذن كينا إذن كوسو قبين دون وحا كمدا maamulka galmudug oo noqday maamulkii ugu horeeyay ee ogolaada sharciga saxaafadda ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya shalay ay soo bandhigtay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo soo bandhigay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab oo isu soo dhibay ciidanka daraawiishta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale waxa daawan doontaan Cali Daahir Ciid madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka galmudug oo la kulmay safiirka dalka Qatar qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaynu idin haynaa marka horese qadar adeega bulshada ah dunida aan ku noolnahay gudaha iyo dibaddaba waxa jooga diyaarad ka shaqeeya dalkeena daruuraha korkoodana dul sabeeyo oo idin deegaankeena timid bay u dambeysay maandeeq ilaah mahadi weeye ha u dayma la'aanina shaqaale loo diyaarsho oo adeega daacado dulqaadkoodu badan yahay dayacaynin amaanado macmiishooda daryeela ku diyaar ah halkaan oo ilaah mahadi weeye dayuuradeena maandeeq ha u dayma la'aanin haddaba xafiiska diyaaradda ee maandeeq airline waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada agagaarka hodan global wixii faahfaahin dheeri ahna waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada shaashada saaran maandeeq airline maantay allah magane maantay rabay ahaatee baan sugayno ka dhowree Ameerika iyo Yurub qaaradaha Australia iyo Afrika labadeeda cirif dunida idilkeeda agabka qurxinta oo dhan meeyabka hablaheen casrigan indha kuusha habluhu aanay deynin kareenkii u dambeeyay oogadaada iftiinsha cadceeda idilkeeda ka ilaalin lahaaba alkhayraadku ugu diyaaree macmiilow baloogow qalabkii isboortiga shayna aanu ka maqnayn baad alkhayraad ka helaysaa aayar maad u timaadid caanihii ubadkeena borotiin la asteeyay ilmihii dhadhanshaana runtii uu u bogaayo alkhayraad baad ka helaysaa aayar maad u timaad alkhayraad haddaba carwa alkhayraad ayaa waxyaabaha aad ka heli doonto waxaa ka mid ah doornooyin birmaad doornooyinka turkiga kareenka kanza kareenka nuura batal birimo turkish kareenka snail saliida bilan saliida oliva carfisooyin originaala kareemooyinka tinta nafaqooyinka tinta kareenka kiilsiriidka dhammaan waxyaabaha uduga sida catarada barfuunada carfisooyinka iyo wixii la mid ah haddaba carwada alkhayraad ayaa waxay ku taalaa inta u dhaxayso shirkadda Olympic iyo sidoo kaleeto stationka weyn ee degmada Cabudwaaq wixii faahfaahin oo intaasi dheerna waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada saaran markale isku soo laabasho waxaan daawadayaal warkii oo fidsan madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa waxa uu la kulmay safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid oo maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay safiirka dawladda Qatar u fadhiya dalka Soomaaliya Xasan bin Hamza kulankani ayaa waxa labada mas'uul ay uga wada hadleen arrimaha horumarinta dawlad goboleedka galmudug iyo kaalinta dawladda Qatar ay ka qaadanayso dib u dhiska hay'adaha kala duwan ee dawlad goboleedka galmudug sidoo kale wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in kulankani la isku soo qaaday sidii dawladda Qatar ay galmudug uga caawin lahayd dhismaha ciidanka daraawiishta dawlad goboleedka galmudug si ay uga qayb qaataan sugidda amniga ee deegaanada maamulka galmudug dawladda Qatar ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha taageera Soomaaliya waxaana sidoo kale la sheegay in ay saaxiibo la tahay dawladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo ay jiraan dawlado iyo siyaasiyiin qaarkood oo dhaliil soo jeediya dawladda Qatar ayaa horay waxa ay ballanqaad u sameysay qaar ka mid ah dawlad goboleedada sida Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Puntland, Jubbaland iyo Galmudug kuwaasi oo qaarkood ay fulisay ballanqaadkoodii magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudugna waxa maanta soo gaaraya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi
magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawladda Galmudug ayaa waxaa gaaray wafdi oo hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay wafdigani gudoomiyaha oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan baarlamaanka dawladda Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Dhuusamareeb ujeedada wafdiga aqalka sare ee maanta uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa lagu sheegay in gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdilaahi uu caawa furi doono kala fadhiga labaad ee baarlamaanka dawladda Galmudug inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawladda Galmudug ayaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxa uu la kulmi doonaa madaxweynaha dawladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi ururka al-shabaab xubno ka tirsan ayaa waxa isku soo dhiibeen ciidamada daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya maamulka degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ayaa waxa ay halkaasi ku soo bandhigeen nin la sheegay in uu ka mid ahaa saraakiisha ururka al-shabaab isla markaana ciidanka isku soo dhiibay ninkani ayaa magaciisa waxa lagu sheegay Maxamed Cabdi Xasan ahaana mas'uulka degmada Qansax Dheere waxaana la sheegay in muddo dhowr sano ah uu ka tirsanaa ururka al-shabaab isla markaana uu ka howlgali jiray tuulooyinka hoostaga degmada saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in sargaalkaasi uu ciidanka isku soo dhiibay kadib markii uu u adkeysan waayay dhibaatada ay shacabka ku hayaan ururka al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay maamulka Galmudug ayaa waxa uu noqday maamulkii ugu horeeyay ee ogolaada xeerka saxaafadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya shalay ay soo bandhigtay maamulka Galmudug ayaa noqday maamulkii ugu horeeyay ee soo dhaweeya xeerka saxaafadda oo uu ansixiyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo isla markaana shalayto ay soo bandhigeen wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta Axmed Shire Falagle ayaa waxa uu dowlad goboleedka wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa waxa uu sheegay in Galmudug ay qayb ka ahayd xeerka saxaafadda qaranka haddana ay Galmudug diyaar u tahay in ay mucaaradin oo ay soo dhaweyso xeerkaasi wasiirka oo la hadlaya warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maadaama duruufo dhowr ah ay jiraan muhiimada ay tahay in la helo sharci ay ku shaqeeyaan bahda saxaafadda ee taageerayaan xeerka la ansixiyo isla markaana ay u arkaan hawl la qabtay maalinimadii shalay ayay ahayd markii wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya lagu soo bandhigay xeerka saxaafadda waxaana maamulka ugu horeeya ee ka soo horjeestay noqday maamulka Puntland halka ay cabasho qabaan ururada saxaafadda Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa mar kale waxa ay maanta oo Khamiis ah xukunno isugu jira xarig iyo ganaax lacageed ku riday shakhsiyaad u shaqeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya dadkani la xukumay ayaa waxa kamid ahaa mas'uuliyiin ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo u xirnaa eedo la xiriira musuqmaasuq xatooyahanti dadweyne waxaana maxkamadayntooda ay soo martay heerar kala duwan maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga maanta oo Khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 8aad 2020 waxa maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 258 2020 eedeysana ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dawladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahim ina Xaliime Maxamed Saciid konton iyo 32 jir ah kuna eedeysnaa qodobada 241 363 366 367 375 376 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo kiiskiisa maxkamaddu u soo fadhiisatay shan fadhi dacwadeed xukunka maxkamadda waxay ku heshay qodobada 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xatooyo xoolo dadweyne maadaama uu kootadiisa gaarka
lagu shubay lacag dhan $202,000 isla markaasna uusan wax difaac ah u keenin qaabka ay ku baxday lacag dhan $105,907 sidoo kalena uu lunsaday lacag dhan $32,000 oo adeeg aan jirin oo wasaaradda caafimaadka ah kaga qaatay karaynta baabuurkiisa khaaska ah. waxay kaloo maxkamaddu ku heshay qodobada 363 366 waxayna ku xukuntay 10 sano oo xadhiga iyo ganaax lacageed oo dhan $59,173,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366. sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan $137,907. xukunkan waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka 101 iyo qodobka 102 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu sheegay. kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso maanta oo Khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 8aad 2020 waa kiiska nambarkiisu yahay 247/2020 uu eedeysana ka yahay Cali Sheekh Doon Cabdi ina xirsiye warsame rooble 46 jir ahna mulkiilaha shirkadda Maamuus General Contracting and Service iyo madaxa hubinta Commitment Control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 251 241 280 iyo 281 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxay ku heshay Cali Sheekh Doon qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne 251 ku danaysa xafiis iyo 280 waxaana ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $88,725,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $3,549. sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan $58,505. xukunkan waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu waxay kala noqotay xukunsanaha damaanadii uu ku joogay. dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman inta uu sharcigu jideeyay. kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 248 2020 eedeysanayaal ka kala yihiin 1 Aweys Xasan Cumar ina Xaliimo Muuday Nuur 62 jir kuna eedeysan qodobada 251 241 280 iyo 281 la akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo eedeysanaha labaad Khadar Aweys Xasan ina Saara Xabiib Axmed oo 26 jir ahaana maamulaha shirkadda Al-Xabiib Business Center kuna eedeysan qodobka 280 iyo 281 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. xukunka maxkamaddu waxay ku heshay eedeysanaha koowaad Aweys Xasan Cumar waxay ku heshay qodobka 251 ku danaysa xafiis dawladeed waxaana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $29,525,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $1,183. eedeysanaha labaad Khadar Aweys Xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 280 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaana ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $29,525,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $1,183. dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu jideeyay. maxkamaddu halka inoogu joogto maxkamadduna inoo xirantay billaah tawfiiq. 24 bishan ayay ahayd markii maxkamadda gobolka Banaadir ay xukunno isugu jira xabsi iyo ganaax lacageed ku riday agaasimayaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaasi oo lagu helay falal la xiriira lunsasho hanti dadweyne. guud ahaan daawadayaal waxaynu intaas ku soo gabagabaynaynaa warkii telefishinka Caabudwa anigoo ah Maxamed Cabdi Jalaqsan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanka iyaga xiga midkan waxaynu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. nabaddu waa furaha nolosha.
haddii aadan nabad haysan ma helaysid fursad aad wax ku baratid ma shaqaysan kadhid ganacsina ma furan kadhid warligo nabada ebo ummato nabada ebo wanu manahi ebo jaahilnimo iyo alla ka cabsi la'aan baa dulmi dhasha dulmi waa wuxuu dhalaa qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan qurux la'aan qaynuun la'aan fursho la'aan qadarin la'aan isqabad la'aan moogta qas iyo qalalaasta iyo qawrac iyo qax iyo hoog iyo boodhan bay ebo warligo nabada ebo ummato nabada ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo amis nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayay ducooyinkiisi waxaa ka mid ahayd inuu yidhi allahuma inaa nas'aluka alamna waaliimaan ilaa waxaan ku weydiisanaynaa iimaan iyo ammaan marka ammaanku waa shayga keligiisa oo ka qayb qaadan kara qofku inuu waxa weeyaan wax fiican oo la taaban karana uu la yimaado waa nolol oo nabad la'aan waxba maana baranin heerka ammaanta joogana ma aanan gaarin haddii aan nabad haysan shirki la qabtaba adoshina warshoosh loo nabad dashaasha iyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloombiyo muro waxsiishida iyo la shahoor hadal shakar samaho adooshayba sheegta nuxur daran la shanshor meel shidee noqoto shacbigu ma rabe ha laga shiro danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihi sharwado shibnaga dhahaa intay garmaqaate iyo garaad xumay noo tasheen maxaa dhacay guuldariya gafiyo ceebaan harayn gadoodkii muxuuna baday maxaa gacal kala anbaday maxaa gaariyo ninkeed isgoobaan war iska hayn maxaa odag guuyo dhaqay u go'ay gaajiya haraad maxaa reer gaan ahaa gantoomee gaban ka haray maxaa guur seegtay inan maxaa godob layska galay maxaa gashi layska dhacay maxaa guryo nabad ahaa la gubayee galangashaa maxaa gacal iyo dadbaha colaad loo kala guntee isgowracay sabab la'aan dagaalkii lama gartaan muxuu go'ashayna badan iyo barwaaqadan lagu qaboobay itanaasir maano laga jaqo nafaqaday naxariista eebay niyadana u rooney naftayda ku jecelo raja'an nusqaamayn ugu naawilaysi